waxaan rabaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan adduunyada maantay inaan u bayaanino dhacday 8 Maarso kana dhacday badweynta ama marin biyuudka Soomaaliyeed inta u dhaxaysa Xaafuun iyo Ayl. dhacdadaas oo ku saabsaneyd doon sidey kotorobaan oo uu waday naaqwado Yemeni ah iyo 3 qof oo Soomaali ah oo doontaas waday kotorabaanka maanduuriyaha ah isku khilaafay awgoodii u afduubtay doontii ama isku rabiinayay gudaha doontii, waxayna u soo gudbeen dhanka badweynta. dhacdadaas doontu waxay siday maanduuriye waxayna ka soo gudubtay inta u dhaxaysa Xaafuun iyo Ayl dhexdoodan laga soo kaxeeyay, waxaana daba taagan ciidanka ilaalinta xeebaha booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa ciidanka badda xoogga dalka Soomaaliyeed oo wada jira iskaashanaya. waxaan rabaa adduunka inaan u bayaanino sida dhacdadaasi ay u qeexeen oo noqotay si qaldan, taas oo micnaheedu yahay in Soomaaliya ay ka jirto waxaan u cadeynayaa Soomaaliya inaysan ka jirin wax burcad badeed ah sida ay qorayaan ama cadeynayaan hay'adaha internationalka ah ee la socda dhaqdhaqaaqa xeebaha adduunka. Soomaaliya 2 sano la soo dhaafay waxay ka nabad gashay wax la yiraahdo burcad badeed. marin biyuudka Soomaaliyeedna waxaa si amni ah ku mara maraakiibta kala duwan ee wada shixnadaha ganacsiga iyo kuwa gaarka ahba. ummadda Soomaaliyeed iyo adduunka guud ahaan waxa u bayaaninaynaa in bulshada Soomaaliyeed wacyigelin badan iyo tababar badan oo la siiyay dhalinyarada Soomaaliyeed awgeed wacyigelinta ay sameynayeen ciidamada ilaalinta xeebaha iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed booliisku iskaashanaya wacyigelin badan iyo dhalinyaradii shaqo loo abuuray awgeed waxaa yaraaday in dhacdooyinba ay ka dhacaan gudaha badda 2 sano u dambeeyay, waxaana lagu guuleystay in deegaanada ay ku teedsan yihiin xeebaha oo dhan ay dhalinyaradu ka shaqeyso ammaanka iyo nabadgelyada xeebaha ku teedsan deegaanadaas, taas oo suurto gelisay in ciidamada ka shaqeeya ilaalinta xeebaha iyo guud ahaan dowladaha caalamka ee ka shaqeeya ilaalinta marin biyuudka Soomaaliyeedba ay ka nabadgeliyaan wax la yiraahdo burcad badeed. waxaan u xaqiijinayaa beesha caalamka dhammaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed in maanta aan u cadeynayo in Soomaaliya ka jirin wax burcad badeed ah oo ay tahay nabad. meel walbana dhacda iyo kiis waa ka dhaca, kiiskaas yarna hadda gacanta waxaa ku haya ciidamada ilaalinta xeebaha dabagalkoodii, warbixinadoodiina talanteelay u wadaan. waxaana uga digayaa doomaha kotorabaanka qaadaa inay kusoo lug go-aan xeebaha ilaalinta ay ilaalada ku hayaan ciidamada badda ee kala duwan haday ahaayeen booliiska Soomaaliyeed iyo haday yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan rabaa bayaanka inaan ku cadeeyo aan ku adkeeyo carabka inaysan Soomaaliya ka jirin ay ka nabad gashay wax burcad badeed la yiraahdo. Soomaaliyana maanta ay nabad tahay, ciidankeeda ilaalinta xeebaha qaybahooda kala duwan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa booliiska ba ay koreen.